daryeelka timaha cashirkeeni afraad waxaa ku qaadanaynaa doorka cuntooyinka muhiimka u ah timaha iyo sidoo kale saliidaha dabiiciga ah ee timaha la mariyo. aan ku hormarno cuntooyinka dabiiciga ah ama laba aan ku kala qaadno oo ah timaha in gudaha laga quudiyo iyo sidoo kale in banaanka laga quudiyo. quudinta gudaha waxaa ka mid ah marka haddii aan ku hormarno ukunta kale. ukunta waxay leedahay proteins, sidoo kale afagaadhada ayadana vitamin E ah ku jiro, timaha qoyaan ay ku siinaysaa, sidoo kale dhadhalaalna way siisaa. malaayga oo kale asna omega 3 ah ku jiro, malaayga salmonka sidoo kale timahana wuu ku kobcinaa ama timaha wuu xoojinaa. sidoo kale cunooyinka cagaaran inay isticmaashin, sidoo kale digirta oo kale inay isticmaashin. digirta ayadana aad ay protein u leedahay, timaha aad ay kugu fiican tahay. sidoo kale mooska oo kale inay isticmaashid. marka haddii oo hal cunto kale aa heli kartid inaad dooratid hal cunto muhiim ah iyo hal saliid. cuntooyinka marka haddii aa mid dooranaysid tusaale oo kale ukunta oo kale haddii aad dooratid isbuuci inaa isticmaashid 3 xab ukun ah ama 5 xab ukun ah inaa isticmaashid isbuuci oo dhan. saliidaha marka ku saareen saliidaha hadda u imaano saliida aad dabiici u ahaa jiraan oo timaha quudiyo, timaha jileec ka dhigo, timaha yani aad muhiim ugu ah oo timaha qooyo. marka saliidahaas waxaa ka mid ah castor oilka ka mid ah, coconut oilka ka mid ah, olive oilka ka mid ah. saliidahaas oo dhan aad ay timaha ugu fiican yihiin oo timaha ma loo heli karo. marka saliidahaas oo kale inaad dooratiin haddii aad doonaysid in timahaaga wax badan ka baratid. 10 shanaadna la joog.